madaxweynihii martida loo ahaabaa noo sheegay. marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan halkan mahadcelin iyo bogaadin aan uga diro dowladda galmudug iyo shacabka reer galmudug sida quruxda badan oo soo dhoweynta leh oo soomaalinimada leh oo dadaalka badan ku jiro oo ehelnimada leh nagula soo dhoweeyey aan uga mahadceliyo. aad iyo aad baa loo dadaalay, aadaan ugu mahadsantihiin. waxaan bogaadinayaa shaqada fiican maamulkan cusub oo curdunka ah uu wado uu u istaagay inuu galmudug uu meel fiican ay gaarto, dadkeedana ay gacmaha isqabsadaan. ayadana waa bogaadinayaa. bogaadinta kadib waxaan isugu nimid shir muddo dheer oo muhiimadda uu leeyahay shirkan wuxuu muhiim u yahay. waa shir wada tashi ah oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay ku tashanayaan. waa shir ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto looga hadlaayo maslaxadeeda, horumarkeeda, isdhexgalkeeda, siyaasaddeeda, amnigeeda iyo dhaqaalaheeda. waa shir loogu talagalay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay isku warsadaan maanta meesha ay Soomaaliya maraysa, iska warsadaan danahooda iyo shaqadooda iyo siyaasadahooda iyo mas'uuliyadda saaran ay ka sheekaystaan. arrimaha amniga laga hadlo, siyaasadda laga hadlo, dhaqaalaha laga hadlo, arrimaha bulshada laga hadlo, doorashada laga hadlo sidii loo wadaagi lahaa marxaladda maanta taallo oo kala guurka ah, sidii looga gudbi lahaa in laga wada hadlo. waa wax mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku xiran. waa wax dowladda federaalka ah aan xubnaha ka nahay oo dowladdaannada ah dan u ah, ayna ku faraxsan tahay ay og tahay. waxa aan ka shaqaynaynana ay tahay wixii nidaamka federaalka uu noo oggolaa oo ahayd in la sameeyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay samaystaan wada tashi iyo wada shaqayn iyo isdhexgal. iyadoo mid guud ay jirto, haddana sida uu madaxweyne Saciid u sheegay, waxaa jiro si gaar ah iyo xaduudo iyo derisyo iyo maxay ahaydee si la leeyahay. annaga dowlad ahaan dowlad koonfur galbeed waxaan deris leenahay, deris weyn baan leenahay, xaduud dheer wuxuu nagala dhexeeyaa dowladda Jubbaland, mid kaleoo ka sii dheer asagana saasoo kale ah Hirshabeelle, mid kale gobolka Banaadir. intaba waxaan rabnaa in wada shaqayn joogto ah iyo xiriir dhab ah aan samaysanno iyo isdhexgal bulshadaas ah oo ku salaysan sidii looga wada shaqayn lahaa arrimahan caqabadaha ku noqday dadka Soomaaliyeed dhibaatada saamaysay oo shabaabka ah, oo loo heli lahaa amni ay dowladahaas kulligood ay ku wada naaloodaan oo lagu wada shaqeeyo, ganacsi iyo isdhexgal fiicanna loo heli lahaa. bilow fiicanaan ka samaynay. 6 bilood ka hor waxaa ilaahay noo suurtageliyey inaan anaga iyo dowladda Hirshabeelle aan shirkaas iskaashiga ah aan qabanno. guulna uu ku dhammaaday oon iska kaashanayna arrimaha amniga iyo deris wanaagga iyo ganacsiga. si fiican buuna noogu soo dhammaaday. inta kalena waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho in iskaashigaas aan samayno. markii aan intaas ka soo gudbo, runtii maanta marxaladda ay Soomaaliya marayso waxaa weeye nin kasta oo Soomaali ah, Soomaalida waxay aad ugu faraxsan tahay
oo heshiis ku tahay oo hanaqaadkii dawladnimada ku dhiirigeliyey in wakhtiga doorashada markii la gaaro uu wakhtigii doorashadii ay dhacday nin kasta oo Soomaali ah wuxuu raba ha ahaado xilkuu raba ha raadiyo wuxuu isku qancinayaa nin walba wuxuu leeyahay wakhtigaaba iska gaaban 4 sano dhamaanaysa waa sugaa marka nin kasta oo Soomaali ah maanta wuxuu diyaar u yahay 4 sano markay dhamaato inuu u diyaar garoobo ninkuu bedeli lahaa iyo ninkii soo noqon lahaaba waa wax standard ah oo Soomaalida dhan ay heshiis ku tahay laguna wada faraxsan yahay runtii dawladda maanta joogto marxaladihii dawladda qori isku dhiibka ahaa shaqo aad u fiican iyo horumar la taaban karo oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed ba anfacayo yay ka shaqaysay waxaan jecelnahay haddii Ilaahay yiraaho in haddana aan ka wada shaqayno sidii ay ku dhici lahayd dadka Soomaaliyeed cabsida ku jirto iyo baqrintan mar walba iska taagan oo u taagan markii marxaladan la soo gaaray kala guurka ah nin kastoo Soomaali ah iyadoo aanan wali aan la gaarin yaa waxaa jira dareen baqdin ah waxa yeelayana waxa weeye dhibaatada tirada badnayd oo la soo maray marka nin walba wuxuu leeyahay haddii aysan saas dhicin dhibaatadii baa lagu soo noqonayaa waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inaysan wixii afka uu bartay oo la dhihi jiray god baa lagu dhacayaa inaysan jirin godna horey looguma dhicin haddana laguma dhici doono insha Allah doorasho dhici doonto sidii caadada ahayd ay u dhici doontaa doorasho dadka Soomaaliyeed oo dhan ay heshiis ku yihiin oo sida ay madaxda dawladda sheegtay golaha wasiirada ay ku baaqeen madaxweynahana uu soo dhaweeyay oo uu ku taageeray weeye doorashada aan rabno oo dhici doonto insha Allah haddii Ilaahay yiraaho doorasho dadka Soomaaliyeed oo dhanna ay heshiis ku yihiin yaan rajaynaynaa waxaan kaloo rabnaa dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka in aan la isku xirnaado oo la wada shaqeeyo oo la abuuro jawi nabadeed oo iskaashi iyo wada shaqayn isla markaasna sidaasoo kale dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ahna ay saasoo kale wada shaqayn iyo isku xirnaan iyo midnimo tan hadda jirta ka sii fiican ay sii jirto yay ka mid tahay shirkan aan isugu imaanay insha Allah waxaan rajaynayaa shirka inuu intaan ka sii ballaaran doono dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu bishaareynayaa rabitaankooda iyo shacabka aan mas'uulka ka nahay waxa ay ka fikirayaan iyo sida ay wax u rabaan inaan ka shaqayn doono in aan maxay ahaydey wax Soomaali ay isku og tahay oo ku faraxsan tahay oo aanan walaac iyo baqdin ku jirin in uu shirkan uu ku soo dhamaan doono haddii Ilaahay yiraaho mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa wafuudii kala duwaneyd iyo madaxweynayaalkii shirkan nagala soo qayb galay iyo dawladdii galmudug aad iyo aad u mahadsantiin wixii kaftan ahaa oo aan aadka u jeclaa waxaa sheegay Saciid aniga naftarkeyga waxaan aad ugu faraxsanahay cabdi qaybdiid uu hubyo iyo isu maraayo gaalkacyo uu halkaas ka shaqaynayo oo uu federaalka uu aad ugu faraxsan yahay oo meeshii laga rabay federaalkii uu gaaray waxaa la yidhaahaa markii Soomaaliya xornimada ay qaadanaysay ka hor intaan xornimada la qaadanin annaga waxaan ahayn dadkii u dacwoonayay federaal Soomaali ma gaarin meeshaas Saciid iyo markaas dadka noogu ilbaxsan bay ahaayeen federaal ma aysan rabin laakiin 10 sano ka hor 60kii yaa odayaashii siyaasiyiintaanadii iyo waalidiintaanadii waxay u dacwoonayeen oo lahaayeen si Soomaaliya dawladnimo rasmi ah looga helo hal daadajiyo dawladnimada systemkan federaalka aan qaadano si aanan la isu dulminin oo cuqdadan aynu u dhalan waxaan qabaa haddii maalintii ayada ahayd talada la yeeli lahaa shakigan iyo baqdintan iyo
waxaan shalay la qaaday iyo magaaladan la isla joogo xal fiican baa yaa imaan lahaa haddana waxaa muuqato in la dabaqay u baahan tahay laakiin in federaalkii dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku faraxsan yihiin in system federaal ah qaadano maamulka iyo dawladnimada hoos loo daadajiyo talada ay tala hoos ka soo bilaabatay ay noqoto ilaa iyo meesha ugu koreysay ay gaarto arrinnan aad ugu faraxsanahay weeye waana la dhammaystiri doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah oo dadka Soomaalida markii laga reebo in la yiraahdo federaal aan nahay waxay u baahan tahay federalismka naftirkiisa barasho kale dawladihii dadkan waxaa lagu soo koray centralismka marka ayada naftirkeedana way qaangaari doontaa waa la baran doonaa haddii la aaminay aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan idin rajaynayaa guul dadka reer Galmudug shirkaana waxaan ka rajaynaynaa inay ka soo baxdo wax dadka Soomaaliyeed ka farxad geliyo waana waxaan u nimid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها الدولة كونفور قلبين مدن لفت قرين عبد العزيز حسن محمد لفت قرين وكان مهد علي ياخذ بدها قيمها بدن إن runtii maaragtay federalismka waxaan u maleynayaa in dad badan oo walaac ka qaba waxay u muujiyaan in dalka iyo midnimadu ay dhaawac ku noqonayso burburinayso ama khafiifinayso laakiin in badan way fahamsan tahay in uu yahay dal burburay iyo dawlad kala tagtay iyo shacab maaragtay shaki kala qaba in qaybta loo dhiso isu soo celiyo oo isu soo celin ay tahay aanay ahayn kala fogeyn marka waxaan jecelahay markan shirkan sida aad ka warqabtaanba maanta indhaha dadka Soomaalidu wuxuu hayaa shirkan Dhuusamareeb iyo wax looga hadlayo iyo waxa ka soo bixi doona madaxweynayaasha oo dhan culayska saaran focuskaana saaran laakiin madaxweyne si gooni loo fiirinayo waa madaxweynaha Jubbaland waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha Jubbaland أحمد محمد إسلام إن هو هالكن كجيديو خطبة ديسة كسر مدحوني